wasaaradda maaliyadda gobolka Saraar gaar ahaan waaxda cashuuraha bariga ayaa waxay maalmihii u dambeeyay gobolka Saraar ka waday howlgallo waaweyn kuwaas oo kor ugu qaadayso dhinaca dakhliga waxaana haatan si ballaaran oo habsami leh u socda cashuuraha wadamarista gaadiidka. Barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi ayaa booqday deegaanka Waridaad halkaasi oo ay ku sugnaayeen maamulaha cashuuraha bariga gobolka Saraar Ayaale Maxamed Aadan Food iyo suduwaha wasaaradda maaliyadda gobolka Saraar Ali Beyo waxaana barasaabka uga xog warameen dadaalka ballaaran ay ugu jiraan kordhinta dakhliga. Salaamaya waftidu hogaamiyaha gudoomiyaha gobolka Saraar iyo kormeerka noogu yimi iminka waxaan joognaa degmada Waridaad oo ka tirsan gobolka Saraar halkaas aan ka wadno ololaha cashuur ururinta roor tagista sidoo kale waxay ka socotaa degmada Wadaamago iyo xarunta gobolka Saraar Caynaba mudane gudoomiye shaqada qaranka u baan u taaganahay haday tahay ciidanka ilaalada cashuuraha shaqaalaha wasaaradda maaliyadda cashuuraha bariga kastamka iminkana halkan oo lagu qaadayo cashuurtii roor tagista iyo cashuurtii kastamka halkan anigoo jaaniska kaga faa'iideysanaya waxaan baa u dirayaa shacab weynaha gobolka Saraar iyo ganacsatada inay iska bixiyaan cashuuraha haday tahay macaash haday tahay payroll haday tahay kala wareejin haday tahay roor tagas nooca u tahayba nasiib wanaagna waxa loo timay iyadoo maamulihii kastanka ahna isuduwaha gobolka Saraar ee wasaaradda maaliyadda joogo hadeer waxaan ku wareejinayaa kulli gudoomiyaha la socodsiinaya iyo wasaaradaba halkan aan ku shaqeynayna waxa weeye waa kastamkii Waridaad waad aragtaan waxa jooga iyana cashuurii bariga jooga halkan anna markii horeba halkan aan ku sugnaa oo gaadiidkan meesha ka muuqda iyo alaabadan ka muuqataan u iiminayaan ku cashuurno waad aragtaan meesha xafiis male waa banaanka muddana intii aanu shaqeynayna halkaas aanu ku jirnay ku shaqeynayna banaankaas aanu ku shaqeynay waxaanuna dadaalkaas oo dhan u sameeynaa sidii aanu dakhliga u kobcin lahayn waxaanu u baahanaa in naloo dhiso oo dhismiin la sameeyo oo dadka alaabta sita ay wuxuu secure noqdaan ayaan gudoomiyaha iyo wasaaradda badal la socodsiineen waa banaanka waxa weeye dukumentkii aan wax ku cashuurayay alaabtii gaarigaas ku jirta ka warka gaariguna way meesiyo iyo guri iyo way soo mareen way joogan way wada arkeen marka haday gobolka tahay iyo haday goobaha kala tahay waxaan doonaynaa in dhismaana loo dardargeliyo oo la sameeyo la dhiso. barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi ayaa isaguna uga mahadnaqay maamulaha cashuuraha bariga gobolka Saraar Ayaale Maxamed Aadan Food iyo maamulaha kastamka magaalada Caynaba Ali Beyo sida fiican ay ugu dadaalayaan kormeerka maanta waxaan aan ku soo haagno waa Waridaad meeshu waan arkayaa cali oo inay magaranaysaa idinku qaawan tahay mar walba idinku soo marana sida waan arkaa waa run waxaanu sameyn doonaa hadii la hayraa wasaaradda iyo inta ka sareysaba waynu u gudbin midda kale waxa weeyaan cashuurta xooga saara qaranku wuxuu ku dhisay yahay waxa weeyaan waa cashuurta waan ku hambalyeynaya sida fiican أو عيدن كعشورة كشغية أو هالجميع يعني وجران شغلة شغالة لفتوسية هيك وجران وندكوهم بليانية هذه أدبر ما سنتوا جامع بوضع عدي ورباهين تقرن كسومالي لان عين بقى